gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa uu markii ugu horeysay sheegay in shirkii magaalada London loogu qabtay dalka Soomaaliya go'aamadii ka soo baxay guul weyn u ahaayeen shacabka Soomaaliland. Gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro waxa uu tilmaamay qodobka sheegaya in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan ay tahay qorshe mugle oo beesha caalamku Soomaaliland ugu hiilisay. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro oo ka hadlaya waxa uu yiri dadka lixaad wuxuu tilmaamayaa in mujtamaca caalamku ama dawliga ah ee dunida soo dhaweynayo wada hadal dhaxmara Soomaaliya iyo Somaliland si ay uga tashadaan mustaqbalka xiriirkooda. laba arrimood meesha ku jiro mid waxa weeye caalamku wuxuu aqoonsaday in Somaliland iyo Soomaaliya ay horena u ahaayeen haddana yihiin laba entity oo kala duwan oo 60kiina midoobay. haddana Somaliland iyo Soomaaliya iyadoo raacayo go'aanka Somaliland 18 May 1999 laba dawladood ama laba entity oo kala gaar ah ayuu caalamku go'aankaasi tusaya. Soomaaliya adduunku wuu aqoonsan yahay, Somaliland ma aqoonsana. marka Somaliland waxa go'aanka shacbiga ay ka qaaday aftidana lagu qaaday waxay u eg tahay in caalamku uu tixgelin buuxda siiyay maanta go'aankii go'aansitaanka Somaliland. waxa ka soo qayb galay saka warqabtaan qaybo badan oo Soomaaliya ah. in qodobkaasi wuxuu tilmaamayaa in qaybahaas inay qayb qulub isku yihiin Soomaaliya la yiraahdo, Somalilandna ay mid gaar ah tahay. wada hadalka duniduna taariikhda qodobka u baahan in hoosta laga xariiqina waxa weeye Soomaaliya Somaliland gobonimada ka hor qaadatay oo waxay qaadatay 26 June, Soomaaliya waxay qaadatay 1 July. marka in laba wadan ama laba dal u wada hadlaan Soomaaliya Somaliland oo caalamku soo dhaweeyay micnaheedu waxa weeye in waqtiga ku munaasibka ama xilli ku munaasiba maadaama ay 20 sanadood isku jiray oo wax badan ayna dhex mareen 20 sanadood oo inuu dawlad qoys ku ahayn. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi sidoo kale telefishinku waxa uu weydiiyay balqaabka dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadli karaan. waxaanu tusaale u soo qaatay wada hadalkii dhexmaray sanadkii 1991 dawladda Eritrea iyo dawladda Ethiopia. gudoomiyaha Cabdiraxmaan Ciro oo ka hadlaya waxa uu yiri caalamku qadiyada Somaliland qaar la mid oo badan baa soo maray. waxa soo maray Eritrea iyo Ethiopia, waxa soo maray Suudaan iyo Suudaan, waxa soo maray dawlad badan oo Yurub oo kala baxay sidii Yugoslavia loo oran jiray. waxa soo baxay wadankii weynaa Ruushka oo kala baxay ilaa 14 dawladood. tusaalayaasha marka la eego badankoodu dawladahaasi way wada hadleen. dawladuhu laba sabab way dhici kartaa in wada hadalku labada dhinac ay wada hadlaan, in cid saddexaad dhexdhexaadisa oo ku dhex jirto. labada option aniga shakhsiyan fikirkayga waxa ila meel dhalsan in cid saddexaad ku dhex jirto oo mujtamaca dawliga caalamka ku dhex jiro la waqtiyeeyo marka ay noqoto wax laba dhinacna ay ka wada hadleen mujtamaca dawlamka ee arinta ka qayb qaateena ay goobjoog u noqdaan. waxa laga wada hadlayaa maaha midnimo Soomaaliyeed, waxa laga wada hadlayaa waxa weeye sidii Soomaaliya Somaliland ay u kala baxayaan, sidii Soomaaliya wadan jaar u noqonayaan. Xamse Ali Bulbul, Hon Cable TV, aqalka baarlamaanka Soomaaliland.